It was never an option for me to take off my hijab and run. senatarka Maraykanka ee Randy Paul oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa weerar afka ku qaaday Soomaaliya iyo Ilhaan Cumar wuxuuna Soomaaliya ku tilmaamay meel aan wax nolol ka jirin isagoo eedeynaya Ilhaan Cumar ayuu ugu baaqay inay booqato Soomaaliya oo ay 7 qabiil 40 sano isku dilayeen si ay 10 uga soo barato. Senator Randy Paul oo ka mid ah siyaasiyiinta Jamhuuriga iyo kooxaha midigta u janjeera isagoo eedeynaya Ilhaan Cumar tusaale xunna ugu soo qaadanaya Soomaaliya waxa uu yiri sidan: waxaan joogaa magaalo ay ku nool yihiin qaxooti badan oo ka yimid Soomaaliya, Bosnia iyo meelo kale, mana arag iyagoo sheegaya in Maraykanku uu meel xun yahay, balse waxaan arkayay inay abaal weyn u hayaan Maraykanka. qaarkood ayaa ka soo baxay daaha birta ah ee shuuciyadda waana qiimeeyaan sida uu dalkeenu u weyn yahay. Ilhaan Cumar waxay Maraykanka ka heshay wax kasta: waxbarasho, caafimaad, cadaalad, kaalmo bulsho iyo inay Koongareeska gasho. misana Maraykanka ayay ku tilmaamaysaa meel xun. anigu malihi aan khasab dib ugu celinno, balse waxaan u jari lahaa tikid si ay u booqato Soomaaliya si ay wax uga barato musiibada ka taagan Soomaaliya oo aanu ka jirin nidaamka hantigoosiga aan lahayn xuquuq dastuuri ah, isla markaana ay ka jiraan ilaa 7 qabiil oo dagaal iskaga soo horjeeda muddo 40 sanadooda. kadib waxa laga yaabaa in marka ay Soomaaliya booqato ay muddo joogto laga yaabee inay soo noqoto oo ay markaas aad u qadariso Amerika. dhinaca kale Ilhaan Cumar oo mar u jawaabaysa kooxo kale oo siyaasiyiin oo weerar ku soo qaaday ayaa sheegtay in kooxahaasi ay u dhaleecaynayaan diinteeda darteed iyo waxa ay aaminsan tahay, waxayna intaas ku dartay in aanay weligeed iska bixinayn xijaabkeeda. waa Cabdirasaaq Jubbo inta dib u kulmayno nabadgelyo. I'm in a town where we have a lot of people who are refugees who have come, some from Somalia, some from Bosnia. I've never heard one of them say that America's a terrible place or be unappreciative of our country. Most of them are thankful. I've met people who have come here from behind the Iron Curtain that got away from communism. They're some of the best Americans we have because they really appreciate how great our country is. And then I hear Representative Omar say, "Oh, America's a terrible place. I'd love to be justice, and there's no justice here." It's like, well, she came here and we fed her, we clothed her, she got welfare, she got school, she got health care, and then lo and behold, she has the honor of actually winning a seat in Congress, and she says we're a terrible country. I think that's about as ungrateful as you can get. And so while I'm not saying we forcibly send her anywhere, I'm willing to contribute to buy her a ticket to go visit Somalia. And I think she could look and maybe learn a little bit about the disaster that is Somalia, that has no capitalism, has no God-given rights guaranteed in a constitution, and has about 7 different tribes that have been fighting each other for the last 40 years. And then maybe after she's visited